السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن إذا الكيبا مرتدى شرفت له هالكان يسوي تيمي يوجدهان أنت نقدر أول شيء تلفزيون كا يونيفرسال تي في كسر هذا مركلية برنامج ككلن كجريرة وهذا هاي وكله هتكذا وتان تلفزيون كا يونيفرسال وحمانته برنامج كنا كلنا فكوري دونا ونكو إيج دونا كونتن يا أفر كونتن يا لبصنا يا كسر وركتين مركي برنامج الصومالية أي كقاتين dalalka Ingiriiska iyo Itaaliya iyo midowgii labada gobol ee Koonfur iyo Waqooyi hadaba si aan wax badan uga ogaano xornimadii dalka Soomaaliya sida ay ku timid qaabka lagu soo yagleelay maalintii 60kii xornimada la qaadanayay dareenka dadka Soomaaliyeed sida uu ahaa yeemaka sida aan ku suganahay ee burburka dalka Soomaaliya ayaa barnaamijka ku eegi doonaa balse waxaan jecelahay barnaamijka qaybta hore inay marti inoogu noqdaan oo ay halkan inoo fadhiyaan wax badan ay ka jawaabi doonaan ku saabsan barnaamijkan waxaan kaga hadli doono waa Axmed Maxamuud Xandulle oo isagu ahaa maareeyihii guud ee hore ee wakaaladda horumarinta biyaha xilligii dawladdii militariga ee dalka Soomaaliya sidoo kalena waxa uu soo noqday wasiirkii tamarta iyo biyaha dawladdii carta lagu soo dhisay madaxweynaha ka ahaa Cabdiqaasim Salaad Xasan إما كسر كسرهم ودن كهولن وعن وحكوا يدين دونا برنامج كنا برنامج كتن يلا بقولة كسر ورقتي دلك الصومالية يدو صيدا وكلنا أي مرتين إنه قلت على قاسين وفر بدا حمزة الشيخ حسين هم ولاطه أو يدو أقدو بيها استقطن كليرة هذا أمان يسوون فرد يسيا هاي ودن كهولن كسر هذا وجهرين برنامج كقولن كجرير وجهرين وعن على هنا هذا الكسيو Xandulle waxaan rabaa inaad faahfaahin guud naga siiso marka Soomaali la iftiiminayo xornimadeeda 60kii iyo gobonimadii halkankii loo soo galay bismillaah waa salaamantii marka hore anigoo fursada ka faa'iideysanaya qaryare waxaan ugu mahadcelinayaa fursadan aad siisay waxaan u hambalyeeynaya intiina halka joogta ee Soomaaliya iyo inta ila baqliya Soomaaliya meel ay joogtaba hambalyo aan u diraya aan leeyahay konton iyo 2 sano ka bacdi oo maalintii gobolada koonfureed ay Talyaani dawladda Talyaani ka xoroobeen isla markaana gobolada waqooyi oo bishii June 26 iyaguna Ingiriiska xornimo ka qaatay ay midoobeen maalin taariikhda Soomaaliyeed laf dhabar ah oo ay ku hambalyeynayaan taariikhda Soomaaliyeed waa qoran tahay oo cidii danaynaysay af Soomaaliya barigii dambe wax lagu qoray cidii danaynaysay waa ka warqabta laakiin dadka dhalinyarada gaar ahaan iyagoo aan dawladnimo iyo wax badan waxba kala soconin halkan ilmo ahaan ku yimid ama kuwa dhashay aan filayana inaanay u helin fursad inay taariikhdii Soomaaliyeed baadi goobaan noocay ahaydba waqti kooban loguma dhargin karo oo loguma dhamaystiri karo taariikhda Soomaaliya iyo marxaladaha ay soo martay inta aniga laftooda aan ka xasuusnahay sideedaba Soomaaliya waxa aynu ognahay taariikhdu waxay sheegtaa 5 qaybood baa loo qaybiyay qaybtaana waxaa la bilaabay 1884 waa wax laga xumaado qaybtii wali waa ku socotaa Soomaaliya ilaa hadda ku socotaa haddaan marka xoogaa dib u noqdo waan soo gaari taas haddii alla hadii waqtigu ii ogolaadee 60kii markii dawladnimo la qaatay dalka Soomaaliyeed taariikhdu ka sheekeynaya waxaanu soo marnay Soomaalidu waxay soo bartay marxalado badan oo gubaysi jiidanayay wuxuu sheegay waan maanta ka hor ka maqal wadamada tan western world-ka ana ka maqal dawladdii 60kii dhalatay ka horeysa Soomaaliya ka jirtay maanta ka hor wariga ba maqala aad baa ninka fikradii iyo taariikhda uu Soomaaliya ka hayay soo dhaweynaya koob iyo 20 sano waxaa ka socday Soomaaliya dagaal ay kula jireen wadamada qarbiga oo Ingiriis hormuud u yahay ciidamo la oran jiray taraawisheed oo gobonnimo doon ah oo dawlad madax bannaan aqoonsi dawladeed adduunka kaba ay haysan laakiin maamul dawladeed lahaa inaan maanta ka baqlo nin aan u dhalan Soomaali aad baan ugu farxay bil xaqiiqo arrinta idinkuna dhalinyaro ay la socdo ogaada inaynu barigaas
وحوالي 1991 إلى 1922 إنه الصومالي كل شيء قاعد يفعله كل يسقال بقول يسقاشن يكو إلى كل يسقال بقول يلواتن يكو أي دولة الصومالية كتير ساعة ولا صعود كودر سنة حاشية تاريخية الصومالية يجي قرن أم بعرف دونتا أنا بوصل نقطة لحدنكي سيابا كلا كتسلوه شيء كرد لحدنكي قبل هذا وقولي لك كاتي إنجليز حرجمه يدور اللي بدل الله صومالي واللي ما شاف بدل يجيبتي أو بدقة أيوة هاي أم هرمود كها دولة دي ترى ويشير أي كها هاي هرمود وحي سو جالسي قبل هذا وقولي كاتان حرجمه إنجليز dalku ma ahayn dal hanti badan dal maxay ahayd magaalooyin wax ku ool oo taaban kara ay ka dhisan yihiin dal maxay ahayd baahiyaha deegaan sida magaalooyinka marka la degayo dadku baahiyay leeyihiin iskuulo caafimaad wadooyin muxuu ahaa iyo wixii soo raaca haye marka waa aad baad u maasan tahay inkastoo warku loo badan yahay qaybaha dambe aan ku soo qaadan doona waxaan jeclahay Xamse Sheekh Xuseen han noolaato iyadoo inaan kelmad ka siiyo daafurka barnaamijka iyo kowda luuliyo iyo midowgii labada gobol waliba dhinaca haweenka oo kay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaalayaal dhammaantiinba waa idin salaamahayaa salaamta islaamka iyo guddooma waxaan dhammaantiinba maanta maalin aad iyo aad u qiimo badan weeye waxaan hambalyo u jeedinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Netherland waxaan ugu hambalyaynayaa maalintii xornimo Soomaaliyeed aynu qaadanay isla markaasna ah midowgii labada gobol North ama waqooyi iyo South oo koonfurta ah ay midoobeen way maanta 1 July 2012 waxa weeye sanad guuradii ka soo wareegatay konton iyo laba guuradii ka soo wareegatay maalintii xornimo Soomaaliyeed ay qaadatay ummadda Soomaaliyeed taasoo ay gobonimo doonkoodii ay ka qaateen markii ugu horeysay oo calan Soomaaliyeed oo Soomaaliya ka babado calan buluugland ka wada oo ah gobolada waqooyi 26 June 1960 taasoo calan Soomaali ay leedahay xorriyadda ay ka qaadatay dawladda Ingiriiska gobolada waqooyi maalintii ugu horeyso calan buluuglahan quruxda badan oo maanta aan ku wada sharaxan lahay maalintii laga taagay magaalada Hargeysa taasoo abwaankii weynaa uu ugu gabiyay sareeyo manusqaamow kana siib kana saa waxay ahayd abwaankii Cabdullaahi Timcade lama ilaawaan weeye taasina waxa weeye waa taariikh run ahaantii in la xuso mudan waan u soo dabaaldegnay maanta waa 1 July markii xorriyadda ay ka qaadatay ummadda koonfurta degan dawladda Talyaaniga taasoo xorriyaddii ay qaateen 1 July 1960 goboladii waqooyi ee walaalaheen ahaana ay la yimaadeen 4 cisho kadib inay la midoobaan gobolada koonfureed taasoo midnimadii ummadda Soomaaliyeed halkaas ay ka muuqato laguna magacaabi jiray laguna magacaabi doono midowga labada gobol koonfur iyo waqooyi 1960 xorriyaddii aanu qaadanay waxaan si gaar ah gabdhaha Soomaaliyeed kaalinta ay ka qaateen u xusahayaa inay gabdhaha Soomaaliyeed ahaayeen laf dhabarkii halgankaas guusha lama ilaawaanka ah soo gaarsiiyay haddaynan gabdhuhu jiri lahayn ma dhaxdeen maanta guusha iyo nabadda iyo gobonimada iyo xorriyadda aan harsanayno ma dhacdeen
gabdhuhu waxay u soo hureen naftoodii waxay u soo hureen hantidoodii waxay daba taagnaayeen oo ragga ay ku taageerayeen dagaalada ku jira inay dhinacii dhaqaalaha ka kaalmeeyaan dahabkoodii ayay u soo iibiyeen halgamayaashii gabdhaha Soomaaliyeed sida Xaawo Cismaan Taako yacnaha kaligeed ma ahayn laakiin waa bartilmaameedkii hooyadaas halgankii Soomaali ha noolaato maalintay dhacday falaarta ugu dhuftay gumaysigii maaragtay xumaa baan dhihi karaa maalintaas aad ma santahay Hamza alxamdulillah hadaan ku soo noqdo waxa Soomaalida taariikhdeeda ku suntan SYL ururkii dhalinyarada Soomaaliyeed in uu qayb muhiim ah kaga jiray ama sabab u ahaa xornimada Soomaaliya imaka ay ku noolaanayso bal hal iyo laba adigu isdul taagaya sida SYL ku timid iyo siyaabaha ay ku suurta gashay inay qayb weyn ka qaataan xornimada Soomaaliya SYL waxay ka mid ahayd dhaqdhaqaaqyadii ku xigay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee uu isu taagay gobonimada Soomaaliyeed sida aad la socotaan ama aad maqashaan mararka qaarkood dadaan maqal hadda aan idin maqashiin doono sida la sheegay 13 nin oo dhalinyaro Hamza waa runteeda meel aan dubar joogin waxba ma qabsoomaan rag kaliya wax ma qaban karo laakiin barigaas laguma darin oo lama odhan dumar baa ku jiray 13 ka mid ah kamana ay marneen oo taas anaaba uba على حال صدق لي طبعاً أردن يرى أو أن سكول صومرين أو أن محايا تجار هاي لو العقد الله هيسن أو أن الدنيا ده أنت جبيسي إلى الجيران ويان دولة دماء فكر بلبك هيسنين هب قبل إلى هذا وقفك بني آدم بقولكم نفسي سكدريو معنوس معناه سبعين سنة تعرف وأركي إنه يسوي دنتي شربتي إنه مدح بنانا وأنا عندو كوجو ميسن يسوتاعي أيام قايمني وحين قارسيين قبلنيمو Somali gobol uma ahayn dhammaan inta Soomaali degto oo qaybo maanta ka mid dalka Itoobiya kamida qaybo ay kamid yihiin dalka Kenya qaybo ay gaar isu taagto leeyahay dalka Djibouti intaba waa ka howlgali jireen waxayna gaarsiiyeen gobonnimadii dhexdii la qaatay qaybta ay ku lahaayeen waxaan oran karaa waa mid u dhiganta ama ka baaxad weynay tii oo ka casrisanay ay aragtiyo bariga aan abuurnay oo muuqan tii ila Cabdulla Xasan barigiisi ayaa u muuqanayay iyaga taabanayay ay arkayeen la hooyanayeen la waabarisanayeen marka SYL sheekadeen ka warankeeda iyo taariikhdeedu ma duugoobayso ragii u ahaa hoggaanka ayaa waxaan u balay maanta ma nin baa ka nool sida aan ka warhayo aan u malaynayo hadaan khaldanayn laakiin qulubta Soomaaliyeed iyo taariikhda Soomaaliyeed kulligood waa kooda nool yihiin sida la socotaan taallooyin baa loo dhisay oo dawladdii anigu waxaan ka xaway marka la dawladdii militariga ma jeclaysan middaa dawladdii kacaanka ayaa anigu ka jeclay in la yidhaahdo maxaa yeelay militarigu hoggaan buu u ahaa mar ee ummadda Soomaaliyeed ayaa kacaanka dhigtay oo dhalisay marka dawladdii kacaanka ahayd waxay dadka ay xustay ee taallooyinka laba ilaawaanka ku xustay way kamid ahayd SYL raggii ee hogaaminayay marka gobonnimada maanta ay Soomaaliya inkasta iska barbariiqanayso oo barbariiqanaysa gumaysigiina qaybiyay 1884 ilaa gabaharin saan idiin sheegay weli waa ina daba socdaa 62 buu inagu bilaabay oo la isku dayay in Soomaaliya la kala gooyo oo waxay to ciidamo niman dhalinyaro ah oo markaa wax soo bartay ma aqaan malaajid dhabar ka soo taabtay weli waa ina daba socdaa maanta way noognahay oo waxbaynu kala sheeganaa ma aha fakar inaga yimid waa fakar banaanka inaga yimid oo shisheeye dagaalkii weli Soomaaliya waa ku socdaa iyo meelo badan oo adduunka midaba marka SYL hadda waxaan u malaynayaa dadkii ay dhashay firkoodii weli wax un baa ka nool gobonnimadii Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed ee raggii ay ku abtirsadeen iyo kamid ahaayeen SYL أقول ما سنتاي حمزة آدم كويديو سيدا قيمها بدنا دوش راح سنة دي الحمد لله حنا ماذا الصومالية اللي كان تعلق الله صومري
soomaalidu waxay ku intifaacday intay dawladuhu loo jireen dhaqaaqaya ka hor burburkii kadib burburkii 1991 maxay soomaalidu u tartay xornimada baad dhihi kartaa xornimada soomaalidu waxay u tartay wax weyn oo haddii qofka jiritaankiisa mar haddii uu xor u yahay adduunka United Nations ayaa la isugu yimaadaa ururada yani dawladaha adduunka marka dawladdu markay gumaysi ka soo baxdo xorriyad qaadato waxay xaq u yeelanaysaa inay horta bal kursi ku yeelato adduunweynihii oo aqoonsigaas weyn ayaa dawladnimada iyo xorriyaddu ay faa'iidadeedu tahay marka ka mid noqoshadeeda cayaar maahan waxa weeye sida loogu soo halgamay waxay noqonaysaa inay dawladdu ikhtiyaar u maamulato waddankeedii dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshada xor bay u tahay cid la maamuli mayso adduunkana waa inay xiriir caalami ah la yeelato oo ay wax wadaag la yeelato dalba wax uu ku fiican yahay in la sheergareeyo oo xiriirka caalamiga ah ee adduunka ayaa taasi jeexaya oo in dawlad walbaba ay dawladaha kalena xiriir la yeelan karto dhinac kastana la iska kaashan karo waxbarashada caafimaadka dhinaca maaragtay bulshada dhinaca instructionka dib yani dhismayaasha waxyaabahaas oo dhan marka xornimadaasi ilaa maanta ma aanan luusgaraynin oo xor baan dal xor baynu nahay xornimadii baan adduunka kula sheergaraynaynaa laakiin xoogaa waxaa dhacday siyaasadda gudaha ayaa annagii dhexdeennii dhibaato noo timid ayaa keentay kala googa ah dagaalka sokeeye ee maanta oo siyaasaddiiba heer waxay gaartay in awooddii ay kala qaybsanaanta bulshadii ay noqotay in qolada kale ay leedahay annaga maanta awoodda qaadan karna kala qaybsanaantaas gudaha ah weeye dhibaatada maanta Soomaaliya ka jirta laakiin wax la isku haysto ma ahan xornimada ummadda Soomaaliyeed waa muqaddas adduunkuna waa noo og yahay ilaa maanta oo 21 sano aan dagaal sokeeye ku jirno ayaan adduunweynihii naga harin oo ugu taagan yahay inuu na kaalmeeyo oo mar labaad dib loo soo nooleeyo maamulkii jiray markaas laakiin xornimada ummadda Soomaaliyeed waa mid muqaddas waana jirtaa waana jiri doontaa هذا ما سنت الحمد لله مركز فيرسو أنت الصومالية فرنمدي كذب دولة نما كنا لوني سوا صدق يكو سنة كوي لبعضن سنة بربر يكعاقف بالمجرى إما كمان نجا بربع سكور يسنين نيا حتى هو هذا الكلام أدوم ردنا عكر هذا كيفتو حسن يكرت الصومالي فرنمدي ويسوع كريس xornimadu waxay inoo kordhisay haddii sida ay xamsa u sheegtay adduunka baraha fuqaarayaasha uu ku kulmo ka mid baynu noqon calankeenni iyo kursi baynu ku yeelnay calankeenna meel la suro iyo kursi aynu ku fariisano markii lagu kulasay ayaynu ku yeelnay adduunku waxna waa wada leeyahay waxna waa kala leeyahay adduunku ma kala maarmo oo dal ka madax bannaan adduunka intiisa kale oo aan waxba uga baahnayn ma jiro laakiin waxaa mushkiladu tahay waxa aad uga baahan tahay iyo waxa lagaaga baahan yahay marka ay ku kala sugnaan waayaan yaa mushkiladu tahay inta aad u baahan tahay adigu inaad garato oo aadan cidda taladeeda marti uga noqon wixii aad uga baahatay adduunkana marinka aad u marayso iyo qiimaha ay kuu kacayso ay kuu sugan tahay oo aadan iyana cidda marti uga noqon naga waxaan u arkaa weli waxaa inaga maqan aragtida ah adduunka waxaynu uga baahannahay qiimaheena ku kacayaan maxaa yeelay waxaynu maqlaynaa oo in muddo ah sidii burburkii u dhacay Soomaaliya maalintii ay burburaysay meesha ay maraysay waxaan u malaynayaa dadkan halka joogay dhalinyarada ah cid qiyaas kartaa ma jirtaa awood dhaqaale waxaynu ahayn dal koraya awood waxbarasho waxaynu ahayn dad korayo jaamacadaynu lahayn caafimaad isbitaallo aanu tiro badan baynu ku lahayn dalka magaalooyinka oo dhan min degma ilaa gobol meel aanu ka jirin ma jirin takhaatiirtu innagay ahaayeen oo Soomaaliya ahaayeen marka aan
maxay tahay qaybihii aan ugu muhiimsanaa ka hadlayo aqoonta waxa ku adeega Soomaali bay ahaayeen inta badan adduunku saan u lahaa laba kala baarbo khibrad wixii leena dheeryahay martii waa noqon jiray waana codsan jiray in laga kaalmeeyo waana dhici jirto waana laga kaalmeyn jiray laakiin dad koraya oo si xawliya u koraya oo xuduudadiisa nabadgelyadiisa sugtay baynu ahay wax soo saarkiisa iyo tacbashadiisuna ay maraysay ciddii aan been ka sheegaynin meel lagu faani karo هذا هو ما سنتوا إذا بسون نقدنا وحنجعل هذا الكلام قيد كسي لليرة اللفت جوده عالك شوكي وفدية شوكي سيد أركيسي وحي حمزة الحمد لله كل هذا هذا كحرني ماذا الصومالي إذا اليرة كانت كل عايم إسرائيل ما كان لقاهم هذا من واحد كبير هذا اليرة ما أنت جوده ذلك هو أبورو حاك هذا بحاله بسم الله الرحمن الرحيم وورنتي وحنجعلنا إن مناسبة سنة بوريدي كنتني يلعبات الصومالية إن أنا أبغى همبلي لما الصوماليين من ربع يجوعان سلام كدب هذه أنا صار ناخذ سؤال شكرا على دي سي وسؤال رنتي أد مهم واه كدب كويو كنتني يلعب سنة حريتي كان بليات الصومالية دي إسرائيل محي حدا كان كويو يلعبات سنة أو بربر أو كدب بي روكيد dhalinyarta uga banaan oo maxay qaban karaan runtii hadda si u fiirsid runtii wax su'aal adag sababtoo ah waxaad u malaysaa dhalinyarta roolkooda in aad uu meesha uga maqan yahay taasina waxaa keenaysa runtii siyaasadda Soomaalida oo mar walba isbedbedel ku imaanayay oo ay mar walbana macnaha asal u ahaayeen dadka waaweyn oo u fiirinayo maxaa aniga awood aan leeyahay maxaa wadanka ku soo zaadin karaa maxaa aan qaban karaa سادرت وماشي وكم طيها ندبرك أما connection كي فلنيبدأ هي أضياشي واحد مركز سودورنا يدتك أو حاجة ستيج كينا يدتك معناها أو سياسة أو كذا قابل لها أنا قلت أسا أيام سال أو قليل لها إنك استحضرت أن يجينا إسبدلوا أدوين هذا اللي يحصل مال أدون كي يجوان إيسوبيان هذه أي نقطة جرجاري أباري هدعي هذه أي نقطة بروجكتيال أو كعاونا يندقي الصومالية محافلة إن شاء الله إن سبحان وقرية إن شسمك جدا بالوسو قال جروي إن اللي يرت المستقبل جروي إن شاء الله باس وسو بحدونان وحنية لها مركان يعني لقي يجيبين هدي عن هذا اللي يرت الصومالية وودنك وودن كنا يا مستقبل كان هدو إلهي راد ودتك وودن تشنا يعني هاي وقت كان ولا قارد من هدو إلهي راد waxay shookin markaad fiiriso taariikhda xornimada Soomaaliya iyo maanta oo kale dabaaldegga qurbaha aan muhiimka ku dabaaldegayno maxay adigu kaaga dhigan tahay gudaha dalka Soomaaliya waad soo joogtay waa filaya wax badan ilaa 4 sano baad ku nooshahay munaasabada halkan ka dhacday iyo munaasabada gudaha dalka Soomaaliya farqi maxay ku sameeyay haddii aan ka hadla taas runtii Soomaaliya mar hore aniga ugu dambeysay wadanka hore ayaan 4 sano ku noolahay waa sax laakiin Soomaaliya runtii waxaan u maleynayaa anigoo aad u yar inaan ka soo tagay laakiin wadamo badan ayaan joogay oo aan uga qayb galay dabaaldeggan kooda luulyo runtii waa dareemaysaa marka aad qurbaha joogtid waxaad dareemaysaa isku imaanshaha Soomaalida waad ka dareemaysaa macnaha jawiga siduu u yahay waxaad dareemaysaa wadankaaga inuu jiro haddana at the same time waxaad dareemaysaa in macnaha aad dareemaysid macnaha إني ونكسنا لهذا الوقت إن دبلتيجن وكل أد كقالة وطن كاجا أديكم معناها أد أركيس الدتك يوم نبض كوضا نولو إسكولات كله ولا هذا يو إنستيوشن دي شقينا يعني وطن كله بدو بيجرو تاس أيارو تكسي قرح بدنا لهذا أنا جاهن تيدا هذا ما سنتاي وحرمينا كويديو ما تو مالي سومالي كوي دليل أنا كم تاي محاك هذا بحي هانا تكفي ستي مركات فيرسي تاريخها قيمها بدني كشكين الحمد لله هي حمزة أسد اللي راح الله بدل اللي ردي كل حرنا بدنا نسوق قاسية كوان لو كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكفر حسنا مع مدني أبهن بين التاريخ إن أوضنا كنا كبرنا أحيانا بدنا نقول وهذا هي كم غلنا شو. إن كستو فرحات ده كان عن شو بل قبة إيه فرحات إسلامي ده هن وده أوضنا كجوتي مكمل جوتي فرحات سوي معه. لكن إن شاء الله نروح على جينا إن نحقق السنة اللي تبغى بسنة كلية بس
تنو كلا نفسد كوين تنو كلا إن شاء الله قوم شكرا إسلام حي درنك أقول horta mar hore horaan waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay aqbalyo sanad guuradii 52 markii xornimada dalka Soomaaliyeed lahaantay maantii xornimada dalka Soomaaliyeed dhiig fara badan baa ku soo daatay dad baa naftooda u qoray SYL halgamayaashii marka ruuxaantii Soomaaliya waxay haysataa xornimo anigu waxaan oran lahaa Soomaaliya waxa weeye waxay gaartay heerkii ay qabsan lahayd ay waxa weeye dhalinyaradi ay wax qaban lahaayeen ay fikir lahaayeen ay odayaashii laftikooda waxa weeye dadkii waaweynaa ay u banayn lahaayeen dhalinyarada sida ay talada waxa weeye ay u qabsadaan dhalinyarada وين صار أنا دليل هذا وحن كنا قنيا مرتشرفك الحمد لله هذا كان جدا بي وحكم إذا ها صوماليا كهربور بركيني وهذا دينا عهر مركا وديرينية ما هذا دينا عافمات كدينا عوه برشة دينا عين كي أمامك لكن هذا نص الله سميه كرأي إذا تقول أنت وحي وناقة وتكتب ما بيس صوماليا ذبكة والله شري عندي بلو قايبين تيدا يلا دقالة كيدا تاريخنا هذا حسني هذا عمرك كان قدر سري ولو هلو احتراف صوماليا هذا ماشي إنه تقدر هاي وقت قادينه الدونك قيمة وحيقول هذا هاي كله عن وضمان يأيره مرة دليل لقالها سيدي للربي بركي لو وين لو قفوا الشدود قليه قيبية كل احتراء أولي كتيرة وعن كهرين وعمل تاس عندك كما ده صورة عندي أروين هذا هو قاتو أدوكو حما كان حقيقة فإذا عاد بيران حيثتو عن ليل عاد كيلو بارا وقفا إن سنة من لقرية وإن محايا هيتو أدو درك لقرية تاني هنا أيضا إسلقرية أما بقوم قاب هيتو وحي كان حقيقة قاب كان لو الحالة إسلقرية أدوكو بيران رعب لها الميس مالنا فائد مال وحكم وضعنا هدي عدنا كفاية سمويدو عدبا كفاية سنة وحصلوا بمايا عدهم بكفاية سنة والمقال سابانتو انتاس وبقول مركبة ما تذكر تعلبات الصومالية هذا لو حبق الصومالي والوحبال أفضل وبركبة أفضل مراكيب تنهروح عن من سنة دمت إليه هنا كارك يوتشوغان يا كلام مهم سن ومشي كايكوي بادير أها ليه فايدوين كرها ديار ماشية أنا هاي صومالي بالبادية كبد بادية وليها فراير وكي مراكيب أفضل كبد بادية درع هاي بيوتشوغان هاي لو قام كرنا ولا تطبع وود كوبن برورا وحلاقة قبل كريلها لو ما تشيل تاسع درك كرنا ولا قال يهين تاسون ومريك الوصول ونبي الوي أقول ما سنتك بقبل البرنامج كنا وكشرنا حمزة كوي لبعض سنة كوي لولي وحلو قد بلدقية قالوا ماشوا وقت وكسمي أظن حكمتها كوي قربها وكسمي هنا كوي لولي وقد بلدقان حلي كلا جورا إما كلا جورا دلك الصومالية قرب كنا ولي وسيجرا محيطها الرجال هذا سيد الله قبل حكره قربها يدبعت دولة الآن دلك الصومالية هايزت. وحسنت قرير سؤال شهدان البارو وحلو قبل حكره وقرى وحوية فكر كي فكر ذا بدن الأوجهاي ومدنمو ده أمد الصوماليات أنه قربها جونا مركينو كم بدونه جودينا midnimadu ay ka dilaacdo markaasna fikirkii la mideeyo la isu keeno ayaa dhibaatada gudaha iyo qurbaha nagu haysato looga bixi karaa oo aanu ognahayna midnimada inay annaga dhaxdeena taalo hadda waa wada fadhinaa inteenaan waxaan ka midaysanahay maanta wax naga dhaxeeyo maxay tahay waa xornimadii ummadda Soomaaliyeed maanta dabaaldegan waa u midaysanahay qof walba wuxuu ku naaloonaya ku faraxsan yahay maanta inay tahay maalintii xorriyadda ummadda Soomaaliyeed sidaa darteed waxyaabaha namidayn kara oo aan garan karo aniga laftigayga waxa weeye maanta oo kale midnimada haddaynu wada xusno waa muhiim qof kasta Soomaali ahna wuu ila leeyahay aniga keligay ma lihi waxa weeye waxaan namidayn karaa diinta ummadda aan muslimka oo aan ka wada tirsannahay oo naga dhaxeeyo dhamaanteedba ummad islaam aynu nahay
taasna waa ku midoobi karnaa waxaan ku midoobi karnaa dhaqanka suuban ee quruxda badan ee ummadda Soomaaliyeed ay leedahay midnimo ayuu keeni karaa haddaynu carruurteena ku tarbiyayno dadkeena waaweyn oo da'deennii maaragtay maanta intaan ilaahay cimrigu nagu simay noloshii macaaneyd ee gobonnimada iyo raaxadii iyo dowladnimadiina soo arkay kana soo shaqeeyay kuna soo dhadhamiyay dhibaatadii sokeeyana arkay 21 sano sida aad u qaybisay garyara 31 sano oo xorriyadii dowladnimo taama aynu haysanay iyo 21 sano dagaal sokeeyo oo ku meel gaar aynu ku jirno haddee waxaan ka sheekayno waa naqaanaa maanta marka waxa weeye Soomaalidu waxay ku maamaadaa iga raali ahaada ri walba shilinka isbitaal lagu qalaa Soomaalidu iyada is yeeshay marxaladda maanta ay ku sugan tahay midnimo ayaan ku gaari karnaa waxaan rajaynayaa marxaladdan kala guurka ahna ee 2 bilood ay ka dhiman tahay waxaan rajaynayaa ilaahayna ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeedna aan ka codsanayaa midnimadii ummadda Soomaaliyeed inaynu soo ceshano inaan dowladnimadii iyo sharaftii iyo haybadii aan lahayn soo celino qabiilka iyo dhibaataduna gaarsiiyayna walaalayaal tanaga qashinka aan ku ridno waa mahadsantiin واتهاي الحمد لله gabagabada barnaamijkan ku jirnaa waxa tahay sida taariikhda ku xusan mid ka mid ah wasiiradii soo maray dawladihii ku meel gaarka ah dalka Soomaaliya gaar ahaan waxa ahayd wasiirkii macdanta iyo biyaha dawladii bilowday 4.5 lagu soo dhisay Carta Cabdiqaasim Salaad Xasan madaxweynaha ka ahaa dawlad kastoo la soo dhisana meeshii la rabay ee dawladnimada ahayd gobolka dalka Soomaaliya inay ka bixiso ma gaarto maxay tahay adigu fiirinaya khibradaada siyaasadeed waxa ku kalifay Soomaaliya inay ku meel gaar u jirto waxaan u maleynayaa horta waxaan asaas lahayn uma dhismaan waxaan su'aashaan hadaan soo noqdo waxay ahayd sidaas aan hadda sheegay waxaan xasuusnahay xamar maalintii uu ka bilowday dagaalka waxaa meel u dhow baan joogay xamar baasaboorradii wasaaradda arrimaha dibadda faylashii wasaaradda qorshaynta xafiisyo gaar ah oo bartilmaameed noqday yaa la gubayay ma ahayn dokumentkii dowladda la dhacayay ma ahayn wax fakar ka dhashay Soomaalida fakar meesha lagu beeray buu ahaa oo bannaanka yimid maxaa yeelay ninka qof la odhan karo gurigaaga gub oo aan wax kale maskax kale ku jirin hadda ma biir qabo oo dabkii qaato gubinaya marka burburku wuxuu ahaa wax allaale wixii aynu wax ku wadaagnay yaynu burburinay inaynu mar dambe wax yagleelano oo dhisano aynu wadaagno oo heshiis ku nahay ma ay fududa waqti bay u baahanaysaa hanti bay u baahanaysaa aqoon bay u baahanaysaa hadana bani aadam wuxuu qabto waa qabyo laakiin qabyadii baa loo kala sabir badan yahay daarana war aynu wax xabaa jireen aynu ku kordhisno wixii khaldan iska saarno wixii saxra sii binayno laakiin inagu waxaynu leenahay iga wada daadi waxa marka iga wada daadi bil ku jiray aad baan kugu mahad celinayaa alxamdulillah waxaan ka cudur daaranayaa ka qaybgalayaasha kale oo helan inay barnaamijka ka qayb galaan waqtiga aad ciriiri noogu ah waxaan samayn doonaa codad gaar ah wareysiyo gooni ah ka qaadi doonaa maadaama saalkan muxuu abwaankii qayladantani xaawal isdaba haysta marka si gooni aan isku wareysan doonaa barnaamijka kulanka garyare oo aan idinkaga soo tabinaynay tiyaatarka magaalada Den Haag anigoo Cabdiweli Ibrahim garyare ay la socodsiinay dhinaca farsamada iyo kaamiradana uu inoo joogay saaxiibkay Say Cali iyo horseed media ay sidoo kale aad ka daawanaysan shabakada kismaayo24.com inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkan qabsoomidiisa waxaa gacan ka geysatay hay'adda Netsom ee fadhigeedu yahay magaalada Haag waxaan aad uga mahad celinayaa marti sharafka qiimaha badan ee barnaamijka martida inoogu ahaa Ahmed Maxamuud Xandulle isagu ahaa horay maareeyay horay wakaalada horumarinta biyaha dawladii kacaanka sidoo kalena ahaa wasiirka macdanta iyo biyaha dawladii madaxweynaha uu ka ahaa Cabdiqaasim Salaad Xasan Carta lagu soo yeegleelay aad baan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga qaaliga si
sidaas la mid ah waxaan u mahad celinayaa Xamse Sheekh Xuseen aan noolaato gudoomiyaha hay'adda la yiraahdo Ammaan iyaduna fadhigeedu yahay magaalada Hague ee wadanka Netherland sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhalinyaradii nagala qayb gashay dooda iyaguna fikirkooda maalintan qaaliga ah kooda looliye ka dhiibanayay guud ahaan inta fadhida meeshan oo mahad celinaya waxaan idinkaga tageynaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo dunida ka joogaan hambalyo kooda looliye. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.